Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada walaalayaal kanaalkeena Cali Kashmir. Waxaan idiin hayaa maanta qiso aad u cajiib ah oo ku saabsan hooyo iyo wiilkeeda ay aadka u jecleed. Ceelkaasna uu horseeday in la dilo. Maxbuuskan oo 10 daqiiqo kadib ay ugu harsaneed fulinta xukunka dilka ah oo uu ku xukunaa. Fulinta nooca dilkaas yahay kursiga korontada in lagu dilo ilaa ay nafta kaga baxdo. Xukumanihii waxaa lagu yiri muxuu yahay dardaarankaaga ugu dambeeya maadaama lagu dilayo maanta. Wuxuu codsaday qalin iyo warqad wuxuuna qoray qisadan. Hooyadayda qaaliga ahay, haddii xukunka maanta lagu fulinayo uu yahay mid cadaalad ah, waxaan sugayaa inaad noqoto qofka igu xiga ee kursigan lagu dilo. Laakiin hadduu sharciga indhala yahay, dambiiluhu waa aniga kaliya. Hooyo, ma xasuusataa sida aan ku bilaabay dhibaatada geerida igu hogaamisay maanta? Hooyo, markii aan 3 sano jiray waxaan xaday macmacaan walaalkay lahaa, laakiin ima aadan canaanan maalinta qaladkaas ku dhacay. Hooyo, si fiican ma u xasuusataa markii aan jiray 5 sano waxaan dariskeena ka soo xaday boombale waxaana ku qarsaday gurigeena adiga oo arkaya ima aadan dhihin. Hooyo, ma xasuusataa markii aan 12 sano jiray waxaan xaday kubbadii ama banoonigii ina adeerkay waxaana ku qarsaday garaashkeena adigoo arkaya. Laakiin waxaa u sheegtay ina adeerkay inaadan kubbadiisa arkin. Hooyo, ma xasuusataa markii aan jiray 15 sano waxaan ka soo dhuuntay iskuulka, balse maalintaas aabe waxa uu rabay in uu si daran ii garaaco, laakiin adiga ayaa i difaacay oo dhahay waa yaryahay wiilkaygu ka leexda. Wiilkayga run ayuu sheegayaa, macallimiinta ayaa been sheegaya. Wuu aaday iskuulkiisa. Waad i difaacaysay ilaa iyo habeenkii. Waxaadna dhahaysay wiilkayga ayaa saxan. Hooyo, laakiin qalad ayaa igu hogaamisay jacaylka aad ii qabto awgiis. Hooyo, ma xasuusataa aniga oo 17 sano jir ah ayaa dariska ka soo xaday baaskiil, laakiin qaladkayga cidna uma aadan warbixin, xitaa booliska ayaa been u sheegtay markii ay yimaadeen guriga. Waadna arkaysay markii aan baaskiilka ku soo xareysanayay guriga. Hooyo, waad i jeclayd jacayl xad dhaaf ah, laakiin maalinna kama aadan fikirin inaad naftayda saxdo ama aad wanaagga igu canaanato si akhlaaqdayda u hagaagto. Halkaas ayaan ka soo bilaabay casharradeedii xumaa. Maantana waa qalinjabinteydii oo waxaan fadhiyaa kursigii geerida. Hooyo, markaas waxaan kaaga baahnaa in aad i barto waddada wanaagga. Hooyo, marka aad sheekadayda akhriso waxaan dhex jiifaa qabriga, laakiin tani waa sheeko xaqiiq ah oo hooyo wiilkeeda qabriga ku geysay. Dhammaan waalidiinta caalamka, gaar ahaan kuwa carruurtooda u jecel sida hooyaday ii jecleed, waxaan leeyahay jeclaada carruurtiina, laakiin ha hilmaamina akhlaaqdooda iyo toosinta in aad ku canaanataan si aysan qalad dambe ugu dhicin.